dunida muslimka marka ay gaadho dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ay isu diyaariyaan maalinta Ciidul Fitriga. Dadka muslimka ah ayaana u soo adeeg doonta suuqyada iyo goobaha laga helo waxyaabaha lagu ciido. Halkani waa suuqyada magaalada Garowe waxa ka jirta saxmad badan. Dadka ayaana ka adeeganaya goobaha lagu iibsho dharka iyo waliba alaabaha kale ee ciida loogu talagalay. ganacsatada ayaa ka waramaya ciidan sanadkan iyo sanadihii hore farqiga u dhaxeeyay iyagoo inta badan la sheegay inay farqi weyn u dhaxeeyo sababna uga dhigay suuqi waaheen oo gubtay isla markaana alaabta looga keeni jiray suuqyada waaweyn ee Puntland iyo sidoo kale abaara baahsan oo ka jira geeyiga Soomaaliya. ciidan hore finay Soomaaliya adiga abaar iyo wadanka wax iska jira laakiin hore alaabta waa noo beejday sanadkan waa u jeedaa alaabta iska dhoobantay ciidan hore farqi weyn ma u dhaxeeya ciidii hore dadka halka ay maciishada jabanayd dadku iibtooda aad u sareeyay halka ciidan maciishada aad u sareyso dadka iibtooduna hooseeyo ciidan iyo ciidii hore hadaan maartay warbixin kaasiyo wax weeyaan farqi badan baa u dhaxeeya ciidii hore iyo ciidan farqiga u dhaxeeya wax weeyaan ciidii hore sida waa ka roonayd hoogaa waa ka fiicnayd waayo ciidan waxa jiray abaar badan iyo wax weeyaan dadkii oo maartay abaaraha ku xabsaday oo maartay hoogaa maartay wax iibsigooda aad u hooseeyo maadaama waqtimidii alaabta laga keeneen hoogaa maartay corona iyo wax iska jiraan oo maartay keenida alaabta hoogaa iska yareys hadda laakiin alxamdulillah adu siday tahayba hoogaa waa maartay waxbay iibsadeen maadaama iidii hore aan gaarin laakiin alxamdulillah hadda waa iska roon tahay jawguna waa degan yahay si fiican baan ku iidnay iidina ma sha Allah maartay waxaan ku yiri ilaahay baa maad iska leh na soo gaarsiiyay iida nabad nagu soo gaarsiiyay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan u rajeynayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan in ciidan ku xigta nabad iyo baraare lagu gaadho waxaan dhihi karaa ciidan iyo ciidii hore in ka soo maartay sixir bar iyo waxyaabo far badan iska jiraan haddana waxaan ku lama xumo oo wax maartay waxaan ku hadda la dhihi karo farq weyn baa u dhaxeeya ma jiraan oo maartay sidii hore suuq u shaqeyn jiray u shaqeeyaa iyo haddana u shaqeynaya marka waxaan leeyahay dadka ciid wanaagsan ilaahay ciideeda inuu gaarsiiyo nabad bismillaahir rahmaanir rahiim ma sayid ibrahim alo leeraniya suuqan horta ma sha Allah ciidi hor ciidan maarne eeda maarne sharduunyi ciidi hor faylaaydi maadaama corona jari sidoo kalena dadka u soo adeeg doonta suuqan magaalada ayaa iyana dhankooda sheegaya in sanadkan ay jirto sare kac ku yimid suuqyada magaalada iyagoo u sababeynaya abaaraha dalka ka jira iyo guud ahaanba sixir barar ka jira deegaanada Puntland. ciidii hore wanaagsaneed tan maciishada qaali waaye waxaan u soo adeeg doonay qiimaha ku soo marnay indhayn suuqa weyn ee magaalada Garowe runtii kaasoo aad looga dareemayay shucuurtiisa inay dadku ciidayaan oo diyaar garoobayaan yoomul faraxa walow dharku uu iska xogaa yar qalqaali ahaa oo badeecadu ay aad u yara kacsanayd oo loo baahan yahay in ay ganacsatadu xogaa yar qiimo dhibis dadka u sameeyaan maadaama iska jiraan abaaro baahsan iyo duruufo nololeed oo iska adag suuquna waa iska camiran yahay amnigiisuna aad buu wanaagsan yahay waa mahadsantiin magacayga waa Amiiro Bashiir Saad Cilmi waxa ku nool magaalada Garowe ma fahamtay dhar baa gadanaya waka كواليجا لسني أمور مكره يا العيد الفرق وده هي لبعض العيد عاد بفرح سنة ما فهمت سوق درك والسوق بحي ميلو عصب على الفري أول وحامل لها نشرين مركا ده اسمه ده الأدواء كدري مكرتها أوكي عبد الغني إحنا فانتاستيك تلفزيون كسر الجرو قنمال إسلام فتوى ما قبتها ويديمو ديني ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya Islam fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber